أبوان حسن دحل لابصالح qorraxda dhalataa qisooyin dhasho taariikh isqortaa xaqiiqda qirto qabyadu noloshay ka qayb tahayoo dunida qaxarkaa qareenla ahoo haddaad qani tahay inbaa qatanoo haddaad qun u taal inbaa qaxayso haddii qolqolkaa biyuu qotomaan inbaan kula qabin nimcada qaaroo haddaad qalan tahay inbaa qubanoo qoriga waxdiliya qaraxya ku dhintee haddaad qaldanay وكما أبوان حسن دحل لابصالح مقعيسو صدحاني وامحي حقيسا أيو كدشي حقيا أيو كسو برباري حلما أيو فانكا كسو بيري وامحي سببتو فنان ولبا هيسيسا وسو قاضيو إساقنو وعانكا النقضي ومحا سببي إنو فنان كسي دقدقا فانكا وقبحو عمسا وقفريستو واي هاي فنان كان هل أبور كان هذا الليقانكا قبي هامبا يقانان برشادة صومالي مقعيا سمعنا كله مقعيسو صدحاني وا حسن سليمان محمد ولو قرون اوغي حسن دحل لابصالح وايهي حسن دحل لابصالح ayaa ku 982 ku dhashay magaalada Gabiley ee galbeedka Soomaaliland waayahay حسن دحل لابصالح ayaa ah abwaan aaraaba dhiibe erayada waana kuwan heesiisi qalbigooda dagaho aragtida ku daare أنا دايما غادي واو ويدو وحشيو نفط الدبر كحيراتا كجحلاتي دمرك أبوان حسن دحل لابصالح فانك كهر محو سي قبن جري waxa uu ahaa ganacsada kala iibinta alaabaha iyo badeecadaha kala duwan isagoo joogay magaalada Dubai abwaanka ayaa waxa uu yimi gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa isagoo halkaas ka bilaabay saxmada social media iyo waliba saxmadiisa fanaanimo hadaba isaga ayaa waxa uu noqon fanaan oo kaliya balse waxa uu ahaa curiye heesa badan oo curiyay ayaa waxa qaada badiba fanaaninta ugu horeyna waxa uu afka qabsaday ama se uu gudoomiye u noqday kooxda xidigaha geeska oo waqti xaadirkani iskaga tagay hadaba abwaankani ayaa waqti xaadirkaasi waxa uu ugu sareeyay inta wax curisa ama inta wax alifta hadaba abwaankani ayaa heesa badan u dhiibay xidigaha geeska oo ay kamid tahay hankaagu hadha Reer Hebel iyo heesa kale oo wadaniya hadaba abwaanka ayaa ahaa abwaan aad looga jecel yahay dhaaxaan qofuloon afkaba qabsadee inaan runta qeexo dantaa qasabtay intii qawadee qowlkaygu dhibaay qorraxda duur taagan ma la qarshaa abwaan laabsaalax ayaa muddo sanado gudahooda qaatay abaalmarinta sanadka isaguna ay abaalmarintaasi soo jiideen heesiisa kala duwana ee uu fanaaninta u dhiibay waxaana uu sidaa ku noqday abwaanka qaranka abwaankan oo aad looga jecel yahay deegaanada Soomaalidu degto intii qalinka sidataa sidii 10 qoran qabiil barato reereero qoqoban hadeer qaybo booraan qodan baanu qayd xidhanno malaha qaaciyo qiiqaan arkaya Yasmin Maxamed Warsame waxaas ka u dhaxday abwaan Xasan Duxul Laabsaalax waxaana uu dhalay laba wiil oo kala ah Maxamed Xasan iyo Axmed Xasan oo uu aad u jecel yahay abwaanku waqti xaadirkani labadiisa wiil qalbigooda dagaho aragtida ku daare أنا دايما غادي واو ويدو وحشيو نفط الدبر كحيراتا كجحلاتي دمركي magac baa ku jira Yasmin watuma abwaanka xaasbiisa inda qurbaad ku maqnay waan gartay ka kala maqnaashaha sukeeyay ay u leeyahay wala waynu dooqiyada maqashada ka simanahay qalbi ku darsaday kalinimo dareemay de alla ilaahay inta sida abwaanka way fariin buu gudbiyaa de isagu dhabaaba marka dareenkiisa uga hadlayay qoliyo kala jiro iyaga qudhoodu de dooqahaan ay wadaagayaan oo rag iyo dumarba qofun kula lamaana ka maqan wala waynu dooqiyada maqashada ka simanahay qalbi ku darsaday kalinimo abwaan Xasan Duxul Laabsaalax ayaa muddooyinka ugu dambeysay u weecday dhanka siyaasadda halkaasi oo ay u maleeyeen dhamaanba dadka taageera inuu fanka ka baxay hadda waa laabtooda oo kaliya ta u sheegtay inuu abwaanku fanka ka baxay balse abwaanku marnaba si cad uma sheegin inuu fanka ka baxay abwaan Laabsaalax ayaa kamida abwaanada ilaa waqti xaadirkan ugu shacbiyada badan abwaanada Soomaaliyeed isagoo abwaanku leh baraha bulshada kala duwan isagoo isticmaala gaar ahaan Facebooka isagoo aad u isticmaala abwaanku Facebooka waxaana uu leeyahay page ay ku xidhan yihiin in ka badan 200 oo kun oo qof iyaguna dadkaasi ka warsuga abwaan Laabsaalax waxa kaliya uu soo dhigo
aalaaba dadkaasi waxay aad u dhageystaan ama se ay aad ugu fasirtaan bartiisa facebooka gabayada aad ka macaan ee uu soo dhigo abwaankani. Abwaan Laab Saalax ayaa muddooyinka ugu dambeysayba waxa uu ku biiray dhanka siyaasadda isaguna xubin ka noqday isaguna xil ka qabtay xisbiga muxaafidka ka jira gudaha Somaliland ee magaciisa lagu magacaabo Kulmiye. Abwaanka ayaa muddooyinka ugu dambeysayba waxa uu saldhigtay siyaasadda iyadoona dadku ay u macnaysteen inuu abwaanku fankii gabagabeeyay balse abwaanku marnaba si cad uma sheegin inuu fanka ka baxay. daawadayaal intaaseen muuqaalkeena ku soo koobaynaa. haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan sii share garee si uu gaaro dad aad u tiro badan oo u baahan inay wax badan ka ogaadaan taariikhda Xasan Dhuxul Laab Saalax. daawadayaal haddii aad tihiin dad cusub oo aan hore ula socon channelkeena fadlan channelka subscribe saar gambalaalkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aad ka xiisaha badan leh aanu saacad walba bartani ku soo baahino. siina share garee muuqaalka comment nadiifna noo reeb. aad iyo aad ugu mahadsantahay daawashada fiidiyoga daawanaysid. waa inoo iyo fiidiyoga kale hadduu alla yiraahdo. maba oga sidaan qabo oo ma qoonsan dadkuba waxaan qawadee qajeela haddii barkeen qarin jiray wataa qayaxnaan qangaadh noqotee duulkii qodobiyo qaynuunka nacee xeerkii qaban la ka dhigay qaladkii qabyaaladda door bidow isqabtaay quruumo horreey rogtay isqabtaay qoonteeduna way fogtay isqabtaay qubkaa basashay la qaab tahayoo cadowga qarankay qumaati tahoo qoriga wax dilay qabaanu tahoo dhiigoo qulqulay ku qaayibanto hungiya qanac bay la qoys tahayoo colaado qarxay qareerun tahoo damiir qoonmay qalqaalu tahoo isqaawin cad bay u qiil tahayoo isqiimatir bay ku qeexan tahoo qataariya waa qardhaastan jinko intii qurunay ku qoofalantee qabyaaladda maad qalbiga ka tirtaan. intay qoloqolo u qaybsan yihiin qabiilka intay qadarinu hayaan intay qoon hore